صدق waxaan goobto ka nahay maanta boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii dalka Ireland ay ka qaadatay madaxbannaanida ama kacdoonkii dadka Irishka ka bilaabmeen magaaladan Dublin centerkeega aynu taaganahay maanta waa maalin xusuus leh waa boqol sano guuro waa 1961 ilaa 1916 ayay ku beegan tahay waxay isku soo baxay malaayiin dad ah oo dalkani u dabaaldegaya maalintii xorriyadda dalka Irishka Sorry. 1916 ilaa 2012 marka xusuustan waa Soomaaliya oo geesiyaashii ama dadkii u soo halgamay jamhuuriyadda Irishka sawirradoodii iyo dadkii tafiirtii ka tafriisamay halkan maanta ay socdaan waxaad daawanaysaan waad arkaysaan ciidamadii baa socda waxa socda shacbigii waxa socda dadkii soo halgamay waxa socda madaxdii kala duwanay looma kala harin dabaaldegan boqol sano guuradii ka soo wareegtay kolkii ay madaxbannaanida ay heleen dadka Irishka ahi 1916 halkan waxa jooga xubno dad ka mid ah dadka Soomaalida ah oo ugu horeeyo Daawud sawirran maanta hor sare taariikhda noocan ay maanta goobjoog ka nahay 100 sano kadib madaxbannaanidoodii iyo kacdoonkii ay dadka Irishka dawladnimada ay ku heleen horta aad iyo aad baad mahadsan Cabdicasiis iyo Somali Radio Ireland oo runtii maanta qeybaha weyn ee ka soo wareegtay boqolkiiba la xusayo qeyb weyn ka ahaa oo hadday noqoto waraysiyada hadday noqoto barnaamijyada aad qeybta weyn qaadatay aad iyo aad baad mahadsantahay halkaan joognaa waxa weeyaan waa istiinka Liberia si waxa loogu macdaray mid ka mid ah 7 xubnood ee kacdoonkan maanta aynu dabaaldegayna sameeyay halka arkaysaa waa runta isbitaalka ugu weyn wadankan marka hal la eego ahaan la eego hablii isbitaalka ka shaqeynay Cabdicasiis waa hablihii dhaawac iyo dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii dhintay u shaqeynay goobta halkaas iyo dadku qabto amiin marada waxa weeyaan waa meeshii halkii ugu qaado ka dhacay oo ah Almore Street waa halkii ragga Alam Salaam hawshan galay lagu dilay meeshaan inuu taaganahay afaan kale waxaan taaganahay College Street oo ay tahay halka uu ka dhacayo maaritaanka ugu weyn ciidamada arkayna meesha maray waxay ahaayeen ciidamada xoogga dalka Ireland oo ciidamo ka ahaa jihadii marka kacdoonka samaysay magaca shiifeen oo la yiraahdo annaga we are ours annaga iska leh oo ay tahay awsheedu inay hay'ad dad wadaniina waxay ka qayb qaateen ciidamada arkaysa meelo badan Kongo ka qayb qaateen ciidamada ilaalinta waxay ka qayb qaateen Lebanon Soomaaliya qaar kamid ah hadda jooga waxana maanta madaxweynuhu Alam Salaam u wax dhigay beerta geesiyaasha oo halkan meel aan naga fogeyna sida oo kale xaruntii weynada looga talin jiray wadankan Ireland oo Ingiriisku boqortooyada deganayna oo halka aynu soo marnay haydna iyadana lafteedu waxa ka jira qodbado sidaas sheegtay Cabdicasiis waxa waxaa jirtay casuumad weyn madaxweynuhu fidiyay dadkii eedkii qaraabadii meesha ka baxay hawlaha maanta socda hawlo yar maaha waana hawlo xiriir oo ilaa iyo inta laga gaarayo 3 cisho ilaa weekan soconaya ayo madaxweynahana Ireland xalay warays la siiyay yiri ka waran baa maanta oo kale wuxuu yiri hadii aanay ragaasi maanta kici lahayn oo aanay dagaalka gal lahayn maanta anigoo madaxweynaha wadanka taarkeena maanta waxayna ku saarinayaan badan